xusiyo weeyaan wax tegay xasuusta baan guuradeen xarbigayo weerarkii wixii xoog lay duldhigay xasuuqi kuma idlaanay xusiyo weeyaan wax tegay xasuusta baan guuradeen xarbigayo weerarkii wixii xoog lay duldhigay xasuuqi kuma idlaanay intii ku xijaabatiyo xabala intaan ku guray naflaxayga ka badani naflaxayga ka badani caqli baa gusha helaaye hor baanahay madax bannaane hor baanahay madax bannaan dadkiisina wuu xasladay caqli baa gusha helaaye hor baanahay madax bannaane hor baanahay madax bannaan dadkiisina wuu xasladay ixdoodatiin waata nabad ku xasilowo waata nabad ku xasilowo xalilay xantina eebaya iskale xantina eebaya iskale بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوضيال ومركلة يا برنامج كامتحانات تاريخ ذا وهذا هنا وكلا كلا سعتان تلفيش كمدح بنان إيه سومالي لان تيفي mujaahid allaystay agoontii uu ka tegay aabbaa loo wadayay hee daryeel lagu urursho iyo dhammaan ummadda u taal waa run weeye sahraa cali xasan waxa ay sheegtay arrin muhiim u ah iyo waajib dul saaran cidda maamulka haysa
ganacsato iyo cid kastaaba in ay mas-uul ka tahay agoontii mujaahidiintii dalka xoraysay ay kaga tegeen ifka xaaladoodana waxba isaga sheegi mayna maanta daawadayaal haddaba barnaamijkeena taxanaha taariikhda ayaa waxa aynu weli ku guda jirnay howlgalkii iyada oo cabdilaahi askar uu xidhan yahay mujaahidiintii ay ka midka ahaayeen mujaahid cabdisalaan turki mujaahid maal iyo raggii kale ee iyaguna howlgalka kula jirayba ay isu diyaarinayaan shaxdii ay kula soo bixi lahaayeen mujaahid cabdilaahi askar barkhad waxa ay noo joogtay oo ah daawateen mujaahid maal oo sheegay in howlgalkii markii xaaladdu ayse soo taagtay in howlgalka la fuliyo oo lagu dhaqaaqo arrintii ay 3 nin oo kooxdoodii ka mid ahaa daboolka ka qaadeen in aanay kuba jirin howlgalkii lagu wada socday iyagoo qiyaas ahaan u muuqda inay howlgalka markii hore u haysteen mid mustaqbal ahaan la fulinayo laakiin markii maalmo gudahoodba in xaaladdu hawsha la gudagala ay noqotay ayaa ay u sheegeen inay dabadda ka yihiin wixii lagu wada socday daawadayaal sida mujaahid cabdisalaan turki uu inoo sheegayba waxaa howlgalka la bixista cabdilaahi askar mataana ku ahayd in la khaarajiyo oo qudha laga jaro gaani waxaa cabdisalaan uu inoo sheegay oo kale in gaani uu u baxay magaaladii magac xarunta oo ahayd Soomaaliya ee Muqdisho isla markaana gaadiidkii ay adeegsan lahaayeen iyagu qaar ka mid ah ay banjareen kuwa kalena ay xumaadeen saddexdaas arrimood haddaba markii hawshaasi ay u fuli weeday halkee ayaa xaaladdu ay ku dambaysay mujaahid maal haynoo anba qaado waana kan 8 dibiir 3 kuma jiro laba naga maqnaa markii hore macni kuma jirno arrinta markay ogaadeen markaan dee noqday in baawartan aanu fuulo awshi fulino ay xaaladiisa soo taagtay ya ayay kuma jirno anagu 8 ma toogay ma fursad laba maqnaa 8 baan ku soo hadnay 3 bay kuma jiro 5 baan noqonay meeshu waxay noqotay inay laba gacan tahay oo dibadda ah iyo 4 gudaha ah saddex gudaha 5 taas ay noqon 5 gacan ayaa meesha ku dhex jira oo min 4 5 taas min 4 wala anaguna 5 baan noqonay halka waxa labada baabuur noo wada laba dira wada labada dira de baabuur kini ka degaan ma oo isma fulaysa hadii labada dira degaan labadii dirwal marka laga reebo shantayadaas laba meelood laba gaar uma qaybsan karo dibadda mid dibadda ah iyo mid ku gudaha qayb tigris inaan noo qaybsano inaan noqon saddexdii naga noqday inaan ku nidhi wariyaale hadda talada naga baxdeen haddana sheegtaa wada kula jirnaa wada kula jirtaan mar baynu wada go'ay dabeeto waxay dhahaan waxba idka sheegin iyagu saasi naga tagana xeradii ugu noqdeen oo agtayda ahayd shantayda waxaan go'aansanay inaan hawshaa fulin karin aan ciidan doono daawadayaal haddaba howlgalkaasi badjeex ee cabdilaahi askar lagula baxayay waxa uu ahaa mid ballaaran waanu qoto dheeraa mujaahidiin kala duwanina siyaabo kala duwan ayay lug iyo howlba ugu lahaayeen waxa TV-ga madaxa bannaan ee Soomaaliland barnaamijkiisa taxanaha taariikhda uu xilis ka saaray iskuna dayay in uu gaadho cid allaaliya ciddii markaasi mujaahidiintaasi lug ku lahayd howlgalkaasi intii aanu heli karnana waxa aanu xiriir la samaynay si aanu raadadkaasi u soo wada qabanno haddaba dhaqdhaqaaqoodu sidee ayuu ahaa mujaahid Ibraahim Koodbuur Allah uu naxariiste iyo mujaahid Ciid Birjeex oo labadooduba ka mid ahaa raggii udub dhaxaadka oo ahaa howlgalkaasi aadan Koodbuur oo ay walaalahaayeen Allah uu naxariiste mujaahid Ibraahim Koodbuur ayaa wixii uu kala socday dhaqdhaqaaqaasi oo isagu ka mid ahaa ciidamadii militariga Soomaaliya waxa uga waramay barnaamijkan taxanaha taariikhda oday dadkii de marka halkan lagu soo ururinayay ee dabeetana waxa uu galay national movement oo hawl galay ayuu halkan u joogay dabeetana wararka halkan ka lalin jiray wuxuu ahaa dabeetana sidoo halkan ugu lalinayay ayaa habeenada ka mid ah ayuu anigoo gurigiisa fadhiya ayuu ii soo galay isagoo laba nin la socdaan
markaasuu nimankan maad garanaysaa markaasaan maya ma garanayo markaasuu yidhi ninkani waa lixle ninkana waa cabdilaahi askar markaa waa nimankii dabadda joogay baqsinkaas dambaanu fadhiisanaynaaye halkaa kadiga fadhiiso cid yay noo soo gelin ninka la yidhaahdo biixi ee ku dhintay markii lala baxayay cabdilaahi askar ku dhintay ayuu yidhi haddii uu ninka caynkaasee timaha caynkaasee biixii milatarigihii uu soo galo ya isaga ii soo daa sidaasaan u soo daayey cabbaar markay fadhiyan haddana way ka kaceen waxay u guureen nayib hargeysa aamina cismaana yuusuf gurigeedii ayay fadhiisteen halkaasi haddana fadhiyeen isla markii dambe haddana way ka guureen guri kaloo xaggaas ayay fadhiisteen waa gurigii cabdilaahi askar dibadda uga baxay markaa ee cabdilaahi askar laga helay markaa nimankii qabtay si yaroo operatinkani muddo dheer buu soconayay ha socda ee operatinkii haddii si jilicsan loogama sheekayn karo waayo waxaa ku jiray operatiinkan dadweynaha somalilayntaa ku jiray waxaa ku jiray waxaan ku dhahayay nimanka la yidhaahdo adhiilayaashoo dhan baa ku jiray tagsiiloo dhan baa ku jiray waxaan ku operation muddo badan laga soo shaqaynayo anigu aanan saa u dhex gelin ayay ahayd habeenkuu shaqada leeyahay ayuu gaadhi igu qaadi jiro wuxuu odhan jiray shidaalkan qaad shidaaluu lahaa meelku ururi foostooyin shidaalaan marka anigu meelku ururi jiray si operationnada wixii dhaca aanu wax ugu qabsanno waaye intii uu ku guda jiray abaabulkaas yacni habeenada qaarkood waxaan filaya inay dhowr toddobaad ama meelaha ahayd habeenadaas gudahooda marna ma ka wada sheekaysateen arrintaas maya kamana wada sheekaysan laakiin wuxuu yidhi adigu waxaad tahay nin militariya ya waxaad la soconaysaa siciid birjeex nin la yidhaahdo ninkii gaadhiga wadaya oo ku dhintay meesha la yidhaha haashin ya siciid birjeex ayaad had iyo jeeraale la soconaysaa waayo anigu waxyaabaha waxaan imi bidow iyadoo ah magaalada hargeysa waxaan galay jaalle siyaad meel la yidhahdo jaamacadda jaalle siyaad ayaan galo leeli sarkaal baan u galay xidigle ayaan u galay marka ayaamaha aan imi nin guuxayo toriyanska ahaa oo xagga mareexaanka raacsan markaa mareexaankaa layga jaraya aniga markaa habeenkii anoo qaylo kolba intuu yimaada yidhaahdaa iyaad la qaylaysa oo dadka afkaaga haysayaan iska ilaali nimanka mareexaanku halka fadhiistaan markaana nin dee toriya waa loo dhimo de waaba yaabanaa markaa ninkaas aniga lay qabiyo aad xiga dhaadhici jiray siciid birjeex la yidhaho yacni si uu ku dabciyo oo kaaga dhaadhiciyo muxuu ahaa waxyaabahan uu walaalkaa ku jiray markaas ayaa isaga lagugu qaybiyey ayaa aniga lay qaybiyey siciid birjeex baa iga dhaadhici jiray siciid baa intaanu xitaa gaadhi igu qaaday reerka iyagoo waraabanay meel la yidhaha yaalla ayaanu tagnay ani baa naloo qalay keen cidlaanu fadhiisanay wuxuu igu soo mahmahay anigu dee tori baan ahaynin markaasi wuxuu igu soo mahmaahay ya wuxuu igu soo mahmaahay inay wuxuu igu soo mahmahay bay qurbasti ila qabsato markaasaan warbeed waalanta qurbasti miyaa tawla dagaalamayna miyaan ahayn markaasuu yidhi war qurbasti aad moodaysa maaha waban iska raaci lahayn markaa gaadhaan waana t amaan wadanaa markaas warbeed waalanta niyo qurbastan raacnaayo xabashaban adigu ninkaas adigu way badan sheekadaasi iga dhaadhiciyey arrimo badan siciid birjeex la yidhaho waqtiyadii ugu xiisaha badnaa waxaa kaa soo socda intaan wada qayilay aanu barqaanay ayuu yidhi gaadhigiina ma deen iska kaxaysanay maka bal ka war abnu halkaa xudka ka talowno ya adigu markii dambe iga soo dhadhaceen markii dambe waxbaan ogaaday waqtiyadaa uu siciid kula sheekaysanayay walaalkaa inuu dhinacan wax u wado isaga wax ma ka ogeyn soo ka siciid iga dhaadhicinaya maaha war dadku sidii hore maaha buu yidhi iska ilaali nimankan mareexaankaa ee aad raacraacdo markaa waxaa laygu qoray guuto joogta 24 la yidhaho wada mareexaana oo nin dee cusub baan ahay markaa kuwaas aniga laygu qoray markaa nin iska tooriyaan marka hore ahaa laakiin markan dambaan aad u fahmay oo dumar baa xitaa laysoo diray haddaba daawadayaal waxa aynu taagnayn cabdilaahi askar oo la qabtay lana geeyey miiska saraakiisha bal haddaba cabdilaahi askar xaaladda uu ku sugan yahay waa kan isagii oo inooga warrama
gaani sidoo ma iman weli ورجعني ما يمن وعيني تيلي waad اسمع فتيك أنا تعال نوجي وفكر كايدي فكر كيسان كإيه waad اسمع فتيك تيلي كوي كي كريمي waad يا عندما تنسينا ويقول له هيلي ويقول له هيلي كريم وهي حركة كلها وقع كجاهية kaga haya markii daawadayaal cabdilaahi askar miiska saraakiisha lagu xidhay ayuu gaani ugu yimid cabdilaahi askar oo xidhan haddaba cabdilaahi iyo gaani wixii dhex maray waa kan cabdilaahi oo inooga warrama halkii ajeelka anigoo ku jira geeni waanu kulanay gaani markii aanu kulanay su-aalaha aanu isweydiinaynay ama uu ii yimid waa uu ii weydiiyey waa sidanay ahaayeen waxaa la socdo nin cabdilaahi khasaare ula jiro hawiye ah oo habar karida oo kornayla oon iskuwada akadaamina gaanigu ii yimid markaasuu yidhi askarow soo bilad geesigii ugu weynayd laguma siin soo dee waan dagaalamay anu goday baan yan dagaalka kalun un galay adu miyaa dagaalantay jaamacaddii ugu dambaysay ninkii korneylihii ugu horreeyey ee taga soo maad ahayn oo 30 korneyl baa dee ku dhacay baari ee anaa imtixaanka baaskareeyey maxaad iga filaysaa inkaas maxaad iga filaysaa maxaan kaa fili haddaad ilaaha wax dila tahay saacaddaa iminka ah midhid الله هذا ما لقى يا بري أنا ولا ميك السعودية أنا دركت والله يقعدني كرري كسول وحول هالكايد موركن وأنك حجين وها به وسيه موركن يا ويا واكي ولقي يا اللي هنا ور موركن سكت أنا كور تاجن وهذا ورا به وصا قبطة هالكلا إذا القوة كلا لا بيصير كرسي ولا جو يسقي بيدي كتات تيجي بكيس أيو بي كتات قاسوا أنت كأنا قلنا dhimaan ayo dhimasho u bareeraa de waa la hayaa anigu milihii waad ka baxaysaa waxaan dhowranayaa ma jirto asmaan fatiig wuxuu waa caynkaasi wariyaha askar waxaan aad maanta halkan u timid ee aad u taagan tahay wax ka weyn ninkaagii bilikiiske waxaanad ku jirtaa waa maxay meesha ma iskaga sii baxaa taasi adigay ku jirtaa baan waxaad jeelaysiiyo waxaad ka samaynayso toortakii aad weydiisay baan weli u soo socdaa ku tala geli jireen ma taqaanaan baasha figayska laydaa fikta madaxayga iyo cagahayga waa la isku keeni jiray saasaa la iskugu xiri jiray waa la isku gudi jiray waxa la samayn jiray bahal alla tiriga oo aanu guuxan maqlayo oo meel ay ka keenayaan mooy waa kuwa taswiiruhu ka muuqda toojarka marka halkee lagu goobay makara goobahaan waan kuu sheegi marka waa la ila bixi jiray marka ay tahay galilka dambe waxa laga soo bixi jiray dariiqan hargeysa kilaab soo hormara halkan wasaaradda arrimaha gudaha halkaas laga soo bixin jiray galbeed ayaan u soo bixi jirnay controlka galbeed baan u dhaafi jirnay abaarso marka aan ku dhownahay doox yaroo halkaa ah ayaa lagu leexan jiray dooxaa yar halkaa weeye halka laygu garaaco halkaa dooxa marka abaarso uu ka sokeeyaa وكسوكيا ومال ير هو لقول أنا وان كوم شيء سايتها إنها كهيرنا يعني وحن يا متت لكن وان كره مركا إلى سوى نقص واقع وارو هو البو كرنا يا غيران وارنكني وهو البا وكرنا يا هالكاس وهالكاس اللي كنت ولا كراعي متين لك ولا كراعي وحلا يقبت جمعه ما هبين ما يا حيتي هبين ما دي جمعة وما تصوت جمعة بتاجي حواي أو كلا الله يقبتي ما توالله هيا أو جمعة سبت والله هيا أحد والله هيا اثنين تينا وانبهيا اكسنت هذا عشان كتير بس ماشي ما قبل جيك وكسدي اللي وقع صدق هذا عشان أنا وين راكسنا يا وحن الله أول ركي وحن الله يستركي تركي إيجو إلا مريجي عقلك إيجو سمله ويعافمات طبعا أما وينوليهم حتى ينوليهم ده أنت كون شيء محيط هاوشي أنا أقول ثلاثة كلمة operation كي جاني يا نوطن وعلاه operation كي جاني هالكي اللي قلت لها إني حتى من يسوي بتلام في حي حاجات ما يكرت محل قبنا يا مركو عن كوستنور والله خفت ركي ساعة نوكله ركب من نولا يا المركالة وركي من نولا كسور نقوها تبع تورتكي واحد هذا سيدا لا يسمين شري لما بحلود نجاه عليه كذي
bahalaha dhagaha layga gelinayaa marka saa loo walaaqo halkaa maskaxda ayaa ku cunaysa ninka waad abaadaysaa halkaasaad xuqanaysaa taasi waa intaa waa yahay marka tigaynta laygu sameeyo xiniyaha labada xiniyood hoostooda yaa lay garaacaya gaw 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 marka xanuunka xiniyuhu falaadkaa noqonaya ma jiro markaa naftu waxay tahay waan wax socotay samaynayaan markaasay soo noqonayaanoo waayir dheer oo meel ay ku soo xidhayeen dee ma indhahay xidhani layn meel ay ku soo xidhayeen ma garanayeen oo electrica waa kuwa jilbaha kilaantilooyinka garbaha iyo igaga qabanayaan ka jilbaha markaa ma electric-gaasa jilbaha waa electrica sawirkan waxaa ka muuqda feedho oo kale sidii wax jaban oo kale u muuqda 5 feerood bay jaban 5 feerood baa jaban adiga arkaya isku duntay oo markaa saasaan ku tegey saasaan ku tegey maan neefsan karayn markaa eeg halkan garbahan ay iga garaacayaan taasi waa taa eeg hadda garbahani waa kuwii keenay nerviskii gacmahan inay falaad noqdaan oonay shaqaynayn gacantaasi iyo lugtaasi inaanay shaqaynayn waa kuwii keenay okay intaas marka aan ku ilaa markaa saas horta torture-ku saasay u samaynayeen markaa mar kaste marka aan in yar indhaha kala qaadis ilaa way igu soo celiyaan waxay yidhaahdaan war hadal jawaabta aan siinayaa waxa weeye markaa war halkan waxaan u imid inaan gaani ka takhalluso gaani baan dilayaa baan ku idhe waa maxay waxa kale ee aad iga doonaysaa ka weyn kolba markaa la yidhaha wax sheeg aga wax caqilka mujiran maxaa sheega dee gaaniina diraan marka waad leed saasad leedahay saasaan leedahay waa maxay marka ka weynay doonaysaa eed waxani leedihin waxaan u socdeen gaani dilo gaani inaan dilo waxay doonayaan sayskaygan inaan sheego oo meelay goobahaagii iyo waxa iyo silsilada oo dhan saasina waxaa dhigaayaa waxaana shaksiga torture ugu horreeyey in agtiisa laga heli inuu soo sheego haddii cabdilaahi askar uu ka warramay jirdilkii loo geystay bal hadda aynu milicsanno ciidamadii ama mujaahidiintii ka midka ahaa ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya isla markaana howlgalkan ay kula soo baxayeen cabdilaahi askar ku wada socday meelo kala duwan oo xiriya ciidamada ah ka howlgalayay sidee ayay ula socdeen xaaladda ninka ay doonayaan inay la soo baxaan waxay nooga warramayaa mujaahidiinta cabdisanaa turki iyo maal tallaabo cabdilaahi askar halka qurbo marayo ayuu ibraahim ula socday kolba soo jeegareynayay waa lala baxay halkaas ku jiraa waa la soo xareeyey nasiib wanaag cabdilaahina waa adkaystay ama hala gubo hala garaaco xiniya halaga tumo biyo hala geliyo wuxuu ku adkaystay kursigaaga samsung kursigaad ku fadhido ayaan leeyahay inla socota wax jira xidh jira shabakada midna mu sheegay waxa warka soo gudbin jiray muuya nin la yidhaahdo oo korneyl ahaa oo u xil saaraa garaacista ninkan muxuu ahaa wixii uu sheego inuu ka qoro ou gaani u qaybiyey oo xilkaaba hayay ayaa warka markuu soo noqdo laga heli isagaa codkaas soo gudbin jiray muuya dabeeto mar walbana qaar baan u diri jirnay oo odhan jirnay labada maalmood aynu shaqaynaynay mar walba qaar baa ku maqnaa soo dhegadhegeeya dabeeta halba in war laga helay inaan war laga helin sheekadaasina cid baa u qaabirsanay siba ibraahimkood buuri warbixinta ugu badan ninkaasaa laga helay isna muuya ayuu ku tiirsanaa oo warbixinta usoo gudbinay xiriirkaasaa jiray in warbixin laga helay inuu cid kale iyo wax sheegay systemka u yimaadeen inuu ka sheekeeyey kaasaa xiriirka ah waday oo ninkii garaacista
cid kalaba ha garaacdee laakiin ninkii wixii uu sheego ka qorayay ayuu ahaa muuya muuya dabeeto markaa aanu kacaynay waa taa sheekada noogu jirtay in lugahana ka xidhay gacmana ka xidhay marka markaa waktigaas laydin sheegay inuu sheegay cabdilaahi ma jirto waxaanu sheegay isla markaa ilaa waktigaas waxaanu sheegay afsoomaaligiisu wuxuu kusoo koobayay sida naloogu sheegay waana imika waa ay haysaani waxaa samayntaan sameeyey ayuu haldhigaala ka dhigin jiray su-aasha haddaba la isweydiin kara ayaa waxay tahay inta aanay howlgalkoodan fulinin mujaahidiintan doonaya inay cabdilaahi askar la baxaan dareen ma ka qabeen in la qaado oo cabdilaahi askar laga qaado miiska saraakiisha ee uu ku xidhnaa oo toos loo geeyo madaarka hargeysa kadibna muqdisho loo duuliyo haddiise taa ay dareensanaayeen maxaa uga meel yaalay ilaa halkee ayay diyaara u ahaayeen waxay ku waajahayaan waa kan maal mar kale annagoon hawlba fulin in nalaga qaadaa ta noogu daran bay maxaa ku tala gasheen markaa waxaan ugu talagalnay haddii ay dhacdo in nalaga qaado annagoon hawsha fulin inaan markuu xerada laga qaadayo aanu annaguna ku diyaar garowno halkii aktoobarada ay salaada ku qaadanayay imka aadni ka dhisatay guriga banaankaa yar ee waran weerkaa inay bartaan nala dhaafin nimanku baabuurkaa sidaa airbood ku sida ayaanu go'aansanay dabeetana waxba nagaga sii daran nimankiisa ee lalahaa way kacsan yihiin cornel baa inta la qabtay halgankii intuu ka yimid jabaadnimadii ee hargeysa dhexe lagu qabtay oo ayar lasoo qaaday taasaa noogu sii daran dabeetana waxay nala noqotay ha la yidhaahdo isaaqiyo waxaa dagaalamay dawladdii cornelkaasay ku dagaalameen dawladdii baa ka xoog roonaatay toddobadeenaas naftaana hor dhigno go-aan baan halkaa ku gaadhay dabeetana sheekada adduun magacaaba ka hadhaa nugu jirnay markaa anu halkaa aadna doonayna inu ku beegno baabuurku baabuurka galo annagu aanu iyaga gallo aanu sugagalaaban doonayna haddii ay subaxda in la qaado noqoto taasaanu go-aansanay on meesha waxbaa noo kala bixin laakiin isagoo fayo baa la qaaday oo ciidakamadaba hadal taasaa noogu daran oonu diidanay ama noo suurto gashay inaanu ka dhex qaadno ama inoo suurto geli aan isku bogsanay daawadayaal haddaba waxa ay mujaahidiintaasi ka midka ahaa wakhtigaasi ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed ee howlgalka la bixista cabdilaahi askar isu abaabulay ay ku sugnaayeen ama ay joogeen xerada birjeex oo ah bartilmaameed ahaan garan kartaan inay u dhaxayso miiska saraakiisha ee uu cabdilaahi askar ku xidhnaa iyo madaarka hargeysa ee ay ka warwarsanaayeen in loo qaado si ay dhexda ugu galaan haddii ay dhacdo haddaba waxaa jirtay in ciidan ahaan iyaga laftigooda tiradoodii 3 ka midii ay operation-ka ama howlgalkii ka baxeen sidee ayay isu soo abaabuleen tiradiise ma buuxsadeen oo dib ciidan kale ma u heleen waa kan mar kale maal shanteedii waxaanu go'aansanay inaanan hawshaa fulin karin aanu ciidan doono dib soo hawlgallo ilaa maalintii dambe waxaanu isku keennay waxaanu ku soo biiray 12 baan noqonay markii hore tutaan ku jirnay 2 tiro waliyo 5 yadan 7 baan ahay 2 naga maqnaa baa noo yimid 9 baan noqonay ina kood buroosna naga maqnaa waa noo yimid 10 koob iyo 10 nin kale oo ninkan nool imika yaa aynaba jooga ninkaasaa magaciid cabdi ciid baa la idhaha oo arabsiya ka yimid oo biixi xaji xasan ciidankoodana ahaa biixi xaji xasan oo 2 dirwal mid ah markaa ayaa oo isaga doondoonaya ayaa noo yimid suuqa anagoo dhex maray inaanu aragno dabeetana waa islaameen nimay isgaranayeen markaasuu gabaar joogo saacaddaanu kacaynina waa shantiibuu ninkaas nagu soo biiraysna halkee baanu idinku yimid annagoo taxi wadano oo marayna halkan basaska jigjiira ka soo baxaan ee fooqa agtiisa annagoo marayna ayuu koona dhinac maraya ayuu mid gacanta u taagay ninkii iskarto oo dabeetana ninkiibuu u yeedha ninkiibuu yidhi har joog
wuxuu weydiiyey biix baan doonaya maarag hawl buu nagula jiraa ii geeyo war hawl degdegaan ku jirnaaye iska nabadgeliyo maya buuli waa laskula jiraa tuu ku jiran oo ku jira sidiiba nagu raacay hawshiina uu nala galay ninkaas wuxuu nala joogay nusa saac macbood markaan fulayno waa cabdi ciido uu joogaa waragga ninka ka nool isagee tukri baa ka nool marka waa ninka qudhay imika dalka jooga ninkaan nusa saac nala jooga ninkaa waxaan ku darnay qaybta dibadda ciidanku marka hore laba qaybood noogu kala qaybsanaa 8 gudaha iyo 5 gudaha markii hore waxaan 7 gudaha ayaan u qaybsanay markii dambe waxaa noo yimid ibrahim koodbuur iyo cabdi ciidka dabeetana midna waxaan ku darnay qoladii gudaha midna waxaan ku darnay qoladii dibadda oo 4 buu ku noqday midna wuxuu ku noqday qoladii guduhu ku noqday 8 oo tukriyo markii hore kalidii jabiye ahaa ayaanu laba kaga dhignay oo ninkaa jabintaad raacaysaado meesha la jabinaysa shaqadii waa ujeedaha inay qabataan ka isagu tukri buu ku biiray oo laba ku noqday ninkan nus saac nala joogayna qolada dibadda ayaanu ku darnay ka hor intaydaan isqaybin sidee ugu tagteen turki iyo halkii uu joogay waqtigaas waxaan ugu tagnay maalintaa hore aanu fadhiisanay habeenimada arrinta dib nooga dhacayso ee saddexna diidaya waxa weeyaan bisha 10keedii maalintii bishu ahayd 11 ayaanu 12 iyo rubuc ilaa 12 iyo barkii meelaha tiyo ah ayaanu tukri ugu tagnay aqal ku jiray oo kii markii hore saaxiibkii inta la qaban guriga ay fadhiyeen waa ka xira dhifta dabadeeda geerishka dabadii ya awaad baa geerishka soo jeedo geerishka dabadiisa ayaan ugu tagnay kii guriga fadhiya annagoo istala soconay intayada dabeetana hawshiisa aanu u geli lahay ayaanu maalintaa ilaa 5 iyo barkii intay ku beegnayd guriga markaa ma koox ahaan baa ku gasheen sidee u tagteen macnaheedu guriga midmid baan u galay habkii aad u marteen gelitaankiisii inoo sheegay waxaanu ka soo raacnay baawur halkii birjeex baan kaga soo baxay waxaanu ni balayga meesha la ilaahay halkaa dumbulo ku taale baawurtii awdka u bixi jirtay ka bixi jirtay halkaa taksiilayaalay baa isaga jiro taksi baan ka soo baxaysan taksiga kolba 4 8 baan nahayno kolba 4 baa soo raacay marka 4tii hore markuu soo dhigay bay waxaanu u sheeganay oo aan isku ogeyn inaanu taksiilaa u sheegano in casuumad ku socon si aanu idinka shakiyin si aanu nooga shakiyin deetaan waxaan ku nidhi taksiga 4tanaad qaadaysaa deetaan anaga halkan doogu imanay marka ninkii uu garanayay kan taksiilihii oo dirwalkii markii dambe baawurkii aanu la taloonay waday ahaa ayaa yidhi 4taasaad horta marka hore qaadaysaa markaad dhigtana annagaad ugu soo noqonaysaa dabeetana ninkii wuxuu yidhi wariyo nimankiinan lawana la casuumay lahaa dee nimankii meel bannaan ayuunbay iga degeen markaa waxay ka degeen halkan banaadheer masaaj ka dhigse 6 joog oo markaa meel caanaley iyo beer ahayd oo wadanoo xidhan ayaa ay kaga degeen markaa kii taksiiri wuxuu ka shaqeeyay nimankan meesha banaanka ka degay ee la casmina aanu aqal bagay dabeetana markuu nagu soo noqday su'aashina weydiin waareedha nimankii meel cid ay gediyay waxaan ku nidhi baawur baa ugu imanayay meesha oo saacadii aanu tegaynay ayaana gaadhnay ilaa 1 ayaa laga yaabaa in baawurku yimaado dabeetana kii aan ku qanacsanayn kii taksiirihii ayuu annagana meeshii na geeyey kuwan joogin meeshii ayaanu tagnay dabeetana muran baanu gelin waxaan ku nidhi waar malaha baawurkii baa u yimid oo dee waa kuwan la qaaday innaga waynagu soo noqon doonaa dareenkii ka yaraa annagu qancinayna
dabeetana kii yaraa kumuu qancinay ilaa markuu naga noqday annana meeshii banaanada aanu kaga degnay ayuu ilaa gargaar imika halkan dhiigshiil ou xawaalada ku bixiyo lacagta ilaa markuu halkaa ka laabayay ilaa masaajidka ibraahim dheere dariiqaa markuu maraayey dib uu noo soo egayy kii tagsiiri markuu laabay ayaanu kala dhaqaaqnay